xaalad xun aan ku noolnahay waan ani horta magacayga waa deeqo gabadha kalena waa deeqo maxamed ale dhaha gabadha kaleetoona roodo allah qole ismaan marka mar walba waan la dilaa hungurina lama siiyo mar walba uga baan dhacaa maqaraan ugu dhufaa wiilasha waa la dilaa kaarabaan ugu dhajiyaa wax sida doonaan sameeyaan waa gartay marka intee in leeg ayaa dhibaatadan ku jirteen deeqa wallahi hadi laba bilood ama laasaan xaaladan joognaa imisa ayaa tiri laba bilood marka ma meel magaalada ka baxsan ayaa lidinku hayaa mise magaalada gudaheeda wallahi magaalada afkeeda meelaha ugu haystaa markoo saxraa soo marnay rafaadana soo marnay marka imaanada xaaladana loo qabanay marka ma Liibiya saxaraheeda mise waa dhinaca Suudaan halkee bay u dhowdahay meesha lidinku haystaa Liibiya saxraa waa ka soo baxnay meel ka sugayso marka Liibiya ayaa u dhowdihiin oo saxaraha inta badan waa ka gudubteen miya Liibiya afkeeda meel baadiyaana leeyahay marka waxaad iga warantaa waxa la idinku haysto ma lacag baa lidinka doonayaa mise waxyaabo kale ayaa lidinku haystaa cagaan nagala rabaa lacag marka deeqa qofkiiba intee in leeg ayaa lagu xiray oo lacag ah oo laga doonayaa wallahi dad lagu 3,800 laga rabaa ninka lagu 3,800 laga rabaa dad qof walba si laga rabaa dad afka ku sheeganaa وهاجي marka jirdilka laga yimaado ma jiraan waxyaabo kale oo gaf ah oo ay idinku sameeyaan dadkaas gacanteeda ku haya hadda may laakiin waxay dhahan hadii intaan ku sii raagtiin wax walba waa idinku sameeynaa marka eheladiini iyo dadkii aad ka timaadeen ma u sheegteen dhibaatada aad ku sugan tihiin iyo lacagta la idinka doonayay intaba waa la hadlay marka la hadlay annaga walaal faatana وهذا نقوى معنا مسؤول بدنا نهدينا هذا ملالين رقم تلفونك حتى ملالين قطعها ممكن نكون قدنا وحول بدي نكون قدنا markii aad Soomaaliya ka soo baxayseen maxaad islahaydeen dhibaatooyinkan oo kale ayaa idin qabsanaya miyaad islahaydeen mise si fudud ayaad ku gudbaysaan baad islahaydeen maxaad u soo jeedinaysaa dadka hadda doonaya inay soo tahriibaan والله وحنا لها هذا الشيء صوتنا رفعت بنا ماشان كتابن بليش هرتنا مثلا قابلنا دكتور صحراء سلو كليتو ورفعت مال والبو waxaan ka dhigi lahaa dhalinyarada joogto tahriibta iyo waxaan dadka soo tahriibin waxaan ka codsan lahaa inay cadawga dadka gacanta u gelinin